بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan baran doonaa qaabka kombiyuutarka looga tuuro program. Most of the people waxay sameeyaan in programki tusaale ahaan wuxuu saaran yahay desktopka inta la kortago desktopka la dhaho right click programka tuuleed kabacdi in la dhaho delete. Maanta waxaan tuuri doonaa program kamid ah programyada kombiyuutarkayga igu install garaysan ama igu shuban. gaar ahaan waxaan tuuri doonaa Mozilla Firefox rabnaa kombiyuutarka aan ka bixino in haddaan dhahno right click delete dooro selection delete kombiyuutarkii kama uusan bixin. Desktopka iyo windowgii markaa ku shidan ayuu ka baxay laakiin size-kii uu ka qaadan lahaa in kombiyuutarkaaga hard diskahaaga uu ka haystaa. Control panel-ka aan tagi doonaa waxaan dhihi doonaa noobinay programs and features Mozilla Firefox meeshan ka fiiri haddii aan meeshan ka helno kama soo baxin. meeshan ka weyno search programs Mozilla waa kana Mozilla size-ka oo ka qaadanaya waa 95.9 megabyte ayuu ka haystaa. Size-ka oo ka qaadanaya waa kaasa 95.9 MB ayuu ka qaatay. Marka haddaan rabo inaan programkii ka tuuro kombiyuutarkayga asagii kortag click uninstall iga tuur uma baahni uninstall ku qabo uninstall yes waan sugi doonaa. yes waa kana hadda bal aan ka fiirin inuu meesha yaalo programs and features Mozilla not away waa baxay. insha Allah tacaala intaas ayaan kusoo koobi doonaa casharkeeni. How to uninstall